culummadu waxay xambaarsan yihiin dhaxalkii ambiyada waana waajib saaran inay ummadda diinteeda iyo akhlaaqdeeda wixii ay u arkaan inay wax u dhimayaan ee yac ka dhahaan marka aragtida culummada waxaan u arkaa mid saxan waana soo dhoweynayaa waxaa kale oo iyaduna ka hadashay arrintan wasaaradda diinta iyo awqaafta oo iyaduna aragtidii culimmadoo kale ayay qaadatay marka kolleyba anigu arrintan dooda keentay iyo hadda gabadhan u dambaysay oo la yidhi magaaladii shuu ku qabanaysaa hoosha la timid wax aqoona oo hore uma aana lahayn hase yeeshee markii aan arkay muuqaallo la soo bandhigay oo barnaamijyo ay nairobi iyo meelo kale ku qabatay muuqaallo ku saabsan xaqiiqdii laftirkaygu aad ayaan uga xumaaday ma jeclaysan muuqaalladaas calaa kulli xaal ummaddu waxay leedahay diin iyo dhaqan qof kasta oo ummaddan fankeeda waa inuu ummadda dhaqankeeda iyo diinteeda ilaaliyo fanku ma ahan haddii alla kuu ron yahay wax ummadda lagu fasahaadiyo waxaa loo isticmaalaa fanka wax ummadda lagu wacyigeliyo ma isleedahay wuu dhaqan gelayaa baaqa ka soo baxay hay-adda culimmada soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha diinta iyo waqaafta waa aaminsanahay inuu dhaqan gelayo sababtoo ah sabab uu dhaqan geli waayaaba ma jirto wax kasta oo ummadda wax u dhibaya haddii alla kurnya in laga joojiyo way tahay hal qodobaan rabaa marka fanku foolxumo maaha fisqi iyo xumaan maaha fidno iyo halaag maaha ceeb iyo fadaro maaha faydo cawrada maaha ka farxalo xishoodko iska faradugley maaha faranjiga ku dayo maaha sida qaar fallaagoobay waxa ay falaan maaha sida loo fahmay maaha fanku waa dhaqan iyo asluub ummadu ay leedahay oo la rabo in la ilaaliyo marka waa ka xumahay dhallinyarada haddii alla kuu ron yaha waddammada ay ka yimideen dhaqamadii ay ku arkayeen in dalka lagula soo laabto ilama fiicna culammada laftirkeeda waxaa laga rabaa inaysan fanka dhan iyo haddii alla kuu ron yaha bahda fankoo dhan aysan u arkin inay yihiin wax wada xun ee la ogaado ummaddu hiddo iyo dhaqan iyo fan inay leedahay sida adduunyadoo dhan ay u leedahay hase yeeshee bahda fankana waxaa laga rabaa ummadda diinteeda iyo akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda inay ilaaliyaan ugu dambeyn abaanguur waxaa tahay maareeyaha tiyaatarka ama golaha murtida iyo wacyigelinta waayadii dambe dadka fanka ku soo biiraya gabdho iyo wiilalna waa la dhaliila dadka wacyigelinta iyo arrimahan u xil saaranna qayb baa ka taha adiga iyo culimmada intaas kaashataan ma wadaan qorsho ama ma idinkugu jirtaa qorsho in xal loo raadiyo arrintan waa wadnaa oo qorshahana waa ay noogu jirtaa sababtoo ah ummaddu hiddo iyo dhaqan iyo haddii alla kuu ron yahay fan fog oo weliba fac weyn ayay leedahay kaasoo weliba wax badan soo qabtay marka haddii alla kuu ron wixii qaldan haddii aan la sixin dhaqankii iyo ummaddu fankii ay leedaha ka baxaya meesha marka waa in la saxaa wixii qaldan oo ummadda haddii alla kuu ron yahay la ilaaliyo diinteeda iyo akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda in la ilaaliyo marka waa noogu jirtaa in isbeddel weyn arrinkaa aan ka samaynana waa aan rajaynayaa haddii alla kuu ron yahay sida culummadu ay uga digeen waan uga digaynaa wixii ummadda dhaqankeeda wax u dhibay in la ilaaliyo dhallinyarada haddii alla kuu ron yahay da'da yar haddana waddammada dibadda ka soo laabanaya xisaabtaa ku darsadeen ummadaha ay ka yimideen isku dhaqan iyo isku hidde iyo isku fanba manihin marka inay ummadda dhaqankeeda ilaaliyaan